بسم الله cashirkeena maanta marka wuxuu quseeyaa elimination method cashirkan waxa uu la xiriiraa cashirkii ka horeeyay oo ahay solving system of equation isla-egyada wada jira oo ahay laba isla-eg oo leh laba doorsoome elimination method marka waxa waaye waa hab ka mid ah hababka lagu furfuro ama lagu xaliyo isla-egyada wada jirta waxaan ka qaadanaynaa insha Allah dhowr example ayaan ka qaadan doonaa example kood haddii aan ku bilaawno elimination method haddii aan ku bilaawno marka example koowaad waxaan ka shaqaynaynaa isla egtan oo hoos ku xusan 2x plus y equal 5 iyo isla egta labaad 5x minus y equal 9 si aan uga shaqayno marka waxaa jirto laba shardi ayaa jirto labada shardi oo ah in shayga aad baabi'inaysid elimination method maadaama micnaheedu uu yahay habka baabi'inta ama habka isku jaridda waxaan sameynaynaa xarafka aan isku jarayno ama aan isku bixinayno ama aan baabi'inayno bishardi oo in xarafkaas ama x ha ahaado ama y ha ahaado shardiga wuxuu uu yahay in horgalaha uu isku mid yahay calaamadahana ay kala duwan yihiin haddii horgalaha uusan isku mid ahayn isku mid ayaad ka dhigi doontaa waana arkaynaa sida isku mid looga dhigayo haddii calaamadaha uusan asna kala duwaneyn asna waa kala duwan sababta wax kale ma ahan hadda meeshan waxaan haysanaa 2x plus y equal 5 iyo sidoo kale 5x minus y equal 9 haddii aan u fiirino doorsoomaha x horgelihiisa waa uu kala duwan yahay balse haddii aan u fiirino doorsoomaha y horgelihiisa waa isku mid calaamadihiisana waa kala duwan yihiin sababta marka shardigaas aan ugu baahannahay wax kale ma ahan hadhow labadii tiro waa ay isku bixi doonaan oo waxaa kuu soo bixi doona 0 meeshaas marka waxaa samaysay elimination ayaad samayso oo waa baabi'isay xarafkii kale ayaa kuu soo hari doona kadibna waxaa kuu fududaanayo in xarafkaas qiimihiisa aad soo heshid aan gudagalna marka example-kan 2x plus y equal 5 iyo 5x minus y equal 9 waxaan sameynaynaa marka u fiirso plus y plus 1y iyo minus 1y ileen meesha horgeliis hal y kana horgeliis hal y horgalihi isku mid waaye calaamadiina waa kala duwan yahay hal laga jira hal maxaa kuu soo baxaa marka 0 labadaas marka eber ayay noqotay oo waad baabi'isay inta u fiirso marka 2x calaamadiis waa plus ka duuyahay tirada marka ku la qorayo lama muujiyo isku darso marka maxaa kuu soo baxayo 2x iyo 5x isku darso maxaa kuu soo bixi doono 7x 5 iyo 9 isku darso maxaa kuu soo bixi doono 14 marka si aan u soo helno xarafka x qiimihiisa waxaan sameynaynaa tirada ku dhegan ayaa meel walba u qaybinaynaa intana hadhow marka waxaa u qaybin doontaa 7 intana waxaa u qaybinaysaa 7 iyo 7 isku baxeen waxaa kuu soo hari doona markii 7 iyo 7 isku baxaan x oo keliya ayaa kuu soo haraya ama 7 u qaybi hal y hal x ku dhufana waa 1x 14 u qaybin waa imisa waa 2 x marka waxaa kuu soo bixi doona qiimaha x saas waxaa ku haysataa 2 u fiirsa marka meeshan haddii aan si fiican u fiirino wax aan sameyno oo ilaahay abuurtay malahan meeshii su-aashii waa uu kuu diyaarsan tahay wax adiga shaqo oo aan ka ahayn shaqada isku bixinta iyo isku darka iyo isku qaybinta wax aan ka ahayn ma aadan qaban sababtan wax kale maahan doorsoomaha y iyo doorsoomaha y oo labada isla ku kala jirta horgalahooda waa isku mid calaamadahooda ay kala duwan yihiin maxaa kuu sahlanaanaya marka si qiimi x ayaa kuu sahlanaanaya in aad soo heshid marka saas marka waxaad ku haysataa x qiimihiisa ayaad ku haysataa marka waxaan u gudagalaynaa marka y qiimihiisa si aan u soo helnay maadaama x aan soo helnay maxaa sameynaya marka u fiirso x qiimihiisa 2 ayuu noqday waxaa sameynaya marka fiiri labadan isla eg aan heesano mid ka mid ah ka soo qaada marka anaga hadda waxaan soo qaadanayna isla egta koowaad oo ah 2x plus y equal 5 2x plus y equal 5 x qiimihiisana waa 2 xasuusnaa marka waxaan sameynaynaa si aan u soo helno y qiimaheeda booska x waxaan ku bedelinaynaa qiimaha x aan soo helnay x maxaan soo helnay 2 ayaa soo heshay 2 soo qabo booska x ku bedelo 2 ku dhufo 4 waaye si aad u soo heshid marka y qiimaha y si aad u soo heshid waxaa sameynaya marka 4 inta qabatid iska wareeji marka u fiirsaya hadda labadan isku dhufan 4 ku soo baxay y soo qoro 5 soo qoro si aad u soo heshid y reebo 4 kana maxaa ku sameynaa marka waa soo wareejinaa wax alla limcina waxaa sameynaynaa wixii xaraf ay dhanka bidix wixii tirada dhanka midig isku keenana si markaas waxaa kuu sahlanaanayo qiimaha waa inaad soo heshid marka 4tan hadda markuu inta yaalo waa plus calaamadiisa markii la soo wareejiyo marka muxuu qaadanaa u fiirso minus ayuu qaadanayaa marka saas maxay ku noqonaysaa y equal 5 minus 4 shan 4 ka jira marka meeqa waa hal hadda x waxaa kuu soo baxay 2 y-na maxaa kuu soo baxay hal si aad u xaqiijiso marka jawaabta sax inay tahay
x laba haystaa y na hal haystaa marka si ay u xaqiijisid jawaabtaada inay sax tahay waxaa dib ugu laabataa marka isla egyadii ama labada isla eg lagu sii dib ugu laabo labada isla eg in la sii waa kuwana maxaa sameynaa marka u fiirso booska x waxaa ku bedeshaa labo inta laba noo dhig y-na maxaa noo soo baxay qiimaha y-na muxuu ahay hal ayuu ahay soo maaha intana hal noo dhig marka laba ku dhuf meeqa waay afar lagu daray hal afar hal ku dar meeqa waay 5 okay tan marka waxaa waaye qiimihii 5 waa ula ekaaday saas awgeeda true ayaa kuu soo bixi doona ama sax ayaa kuu soo bixi doonto haye isla egta labaad ma bishardi haddii isla egta labaad ayadana 9 oo kuu soo baxo jawaabta waa kuu saxantaa laakiin haddii 9 oo kuu soo bixi waayo jawaabta waa kaa qaldan tahay waxaan sameynaa marka boos x laba ku bedelo booska waa in hal ku bedelo 5 waxaa ku dhufataa laba meeqa 10 isus 10 aa ku haysataa minus y-na hal haysataa 10 halka jir meeqa ku leeyahay marka u fiirso 9 saas awgeeda labada isla eg maadaama ay isla ekaadeen jawaabtaada waa ay ku saxan tahay si example ka xiga markaan sii galno tan marka waxaa waaye checking waaye si aad u hubisid markaa hubinaysid labada xaraf waxay ku soo baxay qiimahooda isla eg kadib ugu soo laabo kadibna ku bedelo saas marka waxaa ku xaqiijisanaysaa jawaabta sax inay tahay okay example ka xiga nagee marka example kooda iska fududaay kan labaad nagee marka example labaad waxaa la asigana x plus y equal 0 isla egta koowaad intaasaa lagu siiyey isla egta labaadna waxaa lagu siiyey x plus 2y equal minus 6 haddii aan u fiirsano isla egtaan nala siiyey ama isla egyadaan nala siiyey xarafka x wargeliisa kana waa hal kana waa hal labadii shardi hal mid ka mid ah waa hal oo micnaha muxuu ah labadii shardi waa in xarafka aad rabtid inaad baabi'isid ama x ha ahaado ama y ha ahaadee in hoggalaa oo isku mid noqdo maxaa leeyahay calaamadahana ay kala duwanaadaan laakiin calaamadihii isku mid waa meeshaas marka waxaa sameynaynaa calaamadaha unbaa waxaan kala dhigaynaa plus iyo minus kala dhigaynaa oo waa difference calaamadaha marka waxaa loo baahan yahay inay noqdaan calaamada difference ah oo ama midda kuwa plus ha ahaato tan kaleetana minus ha ahaato ama midda kore minus ha ahaato midda kalena plus ha ahaato shardigaas marka ayaan ku dhaqaaqaynaa okay marka maxaa sameynay marka fiir waxaan sameynay isla egtii koowaad sideeda aan kusoo qaadanay x plus y equal 0 tii kaleetana waxaan ku dhufana minus 1 ujeedada aan kalena marka maxaa waa si calaamadii aan u bedelno marka fiiriya markii minus 1 aan ku dhufanayno horgalaha ila isku mid waa maadaama horgalaha isku mid yahay calaamadii inaad bedeshida u baahanay marka meel walbo oo ama qaybta kor ha ahaato ama qaybta hoose ha ahaato calaamada aad bedelaysid ama xarafka calaamada aad ka bedelaysid minus 1 meel ku dhufanaysaa hadda minus 1 x ku dhuf waxaa kusoo baxaya minus x minus 1 waxaa ku dhuftaa plus 2y waxaa kusoo baxaya minus 2y minus 1 waxaa ku dhuftaa minus 6 waxaa kusoo baxaya plus 6 hadda aan shaqeyno marka x iyo x waa isku baxeen koow inta u fiirsan marka waxaa haynaysaa plus y iyo minus 2y tirada weyn tirada ka jira waxaa kusoo baxaya hal y tirada weyn calaamadeedana minus y jawaabteeda marka waxay noqonaya minus 1y equal 6 marka fiiri y waxaa la socda minuskaas marka si aa u baabi'iso waxaa sameyn intana minus 1 u qaybi intana waxaad u qaybisaa minus 1 oo hadhow marka intana minus 1 haysataa soo maaha minuskan iyo minuskan hadday isku dhacaan positive isku bedeli doonaa saas awgeed marka waxaa haystaa y oo positive ah kanna waa positive kan kaleetana waa negative positive in negative bedel isku qaybina maxaa soo baxaya negative ayaa soo baxayso marka meeshaas waxaad haysataa ama waxaan soo helnay xarafka y qiimihiisa maxaa noo soo baxay minus 6 meel noo dhig marka hadda waxaan raadinaynaa xarafkii x ah marka xasuusnaaw markii hal xaraf aad soo heshid si aad xarafka kaleeto u soo heshid waa inaad soo qaadataa labadii isla eg mid ka mid ah waa inaad soo qaadataa marka okay isla egta koowaad noo soo qaad marka y waxaa noo soo baxay minus 6 isla egta koowaad noo soo qaad x plus y equal 0 booska y marka fiir y hadda maxaan soo helnay minus 6 booska y cala duul toos waxaa ugu bedelataa minus 6 okay x soo qoro plus kaaga soo qoro y qiimeed muxuu ku leeyahay marka minus 6 maadaama laba calaamad ay meeshaan kulmayaan kala xir oo waxaa samaysta okay equal 0 marka waxaa sameynayna marka plus iyo minus isku dhici doona meeshaan waxaa soo baxaysa minus x minus 6 equal 0 si aad u soo hesho marka qiimaha x waa fududahay 6kan iska soo wareeji dhinacaan keen oo minus oo taa markuu dhinacaan imaado wuxuu qaadan doonaa positive ama plus eber haddii 6 lagu daro maxaa kusoo baxaayo 6 ayaa kusoo bixi doonto marka jawaabahaaga waa kuwaasaa si aad u xaqiijiso marka sidii hadda camal samayn labadii isla eg dib ugu laabo qiimaha x waxaa ku bedelataa 6 qiimaha y waxaad ku bedelataa 6 adoo inta joogta hadda fiir x 6 aad haysataa booskan isla hadda fiir inta 6 aad haysataa 6 ku bedelo
y waxaa haystaa minus 6 ka jar waxa ku soo baxaa markaas eber ayaa ku soo bixi doonto marka select labada select dib ugu laabo si jawaabta sax iyo qalad u tahay wax qiijisatid ku bedel marka example saddexaad aan sii tagno example saddexaad waxa la solve the following equation okay inta aadan ka shaqeyn galin hubi su'aasha aad haysatid si fiican u fiir shardigii aan kuu sheegay ka raadi meeshan haddii aad ka weysidna adaa waxaa lagaa rabaa marka inaad shardigaas la yimaadid 2x plus y equal minus 1 iyo waxaan haysanaa sidoo kaleeto 3x minus 4y equal 4 labada xaraf ama labada doorsoomo oo kala ah x iyo y horgeladooda haddii aan si fiican u fiirino x horgeliis waa 2 x kan kaleeto horgeliis waa 3 x kan horgeliis waa 1 x kan horgeliisna waa 4 labadaba markii aan fiirino horgalayaasha isku mid ah marka waxaa laga rabaa in aad horgalahooda isku mid ka dhigtid calaamadaha marka fiiri x calaamadiisa waa plus plus y calaamadiisana waa plus iyo minus marka kana kuu fudud inaad qaadatid sababtoo ah dhow ma baahanaysid inaad calaamadahana aad sidoo kale aad kala bedeshid okay aan shaqeyna marka waxaan sameynaynaa marka si aan horgalayaasha hadda waxaan dooranay inaan baabino y si aan marka y horgalihiisa aan isku mid uga dhigno maadaama calaamadaha uu kala duwan yahay horgalihiisa marka si aan isku mid uga dhigno waxaan sameynaynaa kan horgalihiisa waa 1 kan horgalihiisa waa 4 qaybta sare ku dhufo halna qaybta hoose ku dhufo macnaha si isdhaaf isku dhufo 4 haddii laba lagu dhufto meeqa ku soo baxaysa 8x ay noqoneen 4y ku dhufo waa 4y 4 minus 1 ku dhufana waa minus 4 hal haddii 3x lagu dhufto waa 3x hal haddii lagu dhufto minus 4y waa minus 4y hal haddii lagu dhufto 4 waa 4 inta markii aan joogno marka fiiri plus 4y iyo minus 4y isku bixi maxaa ku soo haray 8x iyo 3x isku darso waa 12x minus 4 iyo plus 4 na ayakana sidoo kale labadan haddii la isku bixi maxaa ku soo haray 0 oo plus iyo minus oo labada isku mid ah waaye 0 ayaa ku soo bixi doonto x qiimihiisa marka si aad u soo heshid waxaa sameynaysaa x-ka tirada ku dhigan meel walba u qaybi intana 12 u qaybi intana 12 u qaybi 12 iyo 12 wana ku soo baxaayo 1x ku dhufo waa 1x ever haddii 12 loo qaybin waxaa ku soo bixi doono 0 ayaa ku soo bixi doona marka hadda marka waxaan sameynaynaa hal xaraf qiimihiisa waa soo helna qiimihii x soo helna si aan u soo helna marka qiimaha y labadii isla eg mid kamid ah soo qaado marka aan mar walba isla egto kooda soo qaata x marka waxaan haysanaa 0 si aan u soo helno marka xarafka y qiimihiisa isla egta kood noo soo qaadno isla egta kood waxaan haysanaa 2x plus y equal minus 1 waxaan sameynaynaa marka fiir booska x waxaan ku bedelinaynaa 0 ilaan x wuxuu ku leeyahay eber ayuu ku leeyahay haddii laba eber lagu dhufto meeqa waay eber y plus y equal minus 1 marka tan waa fududahay laba eber ku dhufo eber y plus y marka meesha waxaa ku soo hari doona y bisa ku soo haray equal shaqo dheer ma u baahan yahay aqoontiba marka labada saddexda example meeshaas ayaan uga bixinaa waxaan idinkaga tagayaa marka su'aasha soo socota inaad ka shaqaysiin nin walbana jawaabta uu soo saaro commentiga insha Allah aan ugu wadaago su'aasha u dambaysa waa kana marka practice y adinka idin dhaafa inaad ka shaqaysiin waxaa lagu siiyay 5x minus 4y equal to 2x plus 3y equal 10 marka laga soo shaqeeyo halkaas ayaan ku joojinaynaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi